halkani waa Raydab Khaatumo waa degmo xuduudeed ka tirsan gobolka Daadmareed magaalo madaxda gobolka ee Odweyne ay hilaadii 85 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan tahay geedkan hoostiisa ay degmadu ka bilaabantay xilli lagu qiyaasayo 80 gu ka hor nin lagu naanaysi jiray dhallibaax ayaa maqaaxidii u horeysay galoolkan hoostiisa ka bilaabay كلي waxaan ku hayaa wardhigooda odayaashiga waaweyn ama ka wareystan ku soo gaaray magaalada sidii Xaaji Maxamed Xaaji Waawa oo kale waxaan xogta hayaa Khaatumo markii hore waxa degan in loo jiray dhallibaax wuxuu ka furan jiray meherad taariikhdaas waxa ahayd 38 ilaa 42 geed galoobe meeshu ahayd beesha degto daaqeen baahida magaalo ma jirin dhulka waxa joogay bah la yiraahdo bardoogo libaaxa koo ka yahay dadka cuna ninkaasi maalintii wuxuu shidi jiray meherada habeenkii wuxuu ful jiray geedka magaalo ma ahayna in xuduudku halka ka yaala Ingiriisku Talyaaniguna halkaas ka yaalo halkan baandadii taal waa taas waxa weeyaan waa 82 sano ninka dhallibaax ayaa horta koo ka ahaa cid meherad ka furta magacan Khaatumo sidoo ku baxay wuxuu ku baxay siyaada halkan la dhig ina aan qabl xabaa bixiyo insha Allah tan waxa weeyaan Khaatumo waxa meesha Raydab Khaatumo loogu bixiyay ku timiyaduna ku dhalatay meesha burwaaqay noqotay waxay lahayd Raydab xoona beesha soo guurtay oo ina laga soo guuray waa la digay iyadoo burwaaqadii sidaan ku hayo waxa juucay sheegay Allah u naxariistee iyadoo beeshu degantay baa nin loo jeeyay Cali Qablax oo beesha ogaadin ka soo jeeda oo sheekh ahaa oo xirwatay ayaa yimi Raydab tu fariistay waxaan doonayaa buuri siyaaro balaaran ayaan wadaa in la siyaarto waa la siyaartay si wacan baa loo siyaarto geel iyo aribo waa la siiyay ka bacdi markaas uu tan waa Raydab Khaatumo barkad ninka qodaxa xiba ugu horeeyay xagga biyaha xagga guryaha xiba ugu horeeyay iyadoo halka taagan wali daaqeenkii ah ayaa ninka la yiraahdo xaaxi oo ree Odweynaha ayaa yimi Khaatumo barkadan imkay nagu dhaw agteeda aynu taaganahay ayuu ka aasaasay Allah u naxariistay Xaaji Waawa oo ahaa odaygii magaalada dadkii ugu mudnaa ahaa wuxuu igu yiri hudheel baan ku haystay meesha la gudubi ninka injineerka barkada sameynaya waxaan soo dhibi jiray buuri wuxuu igu yiri waagi bariyabayaan waayn waslad hilib oo garab ah gaari ma jirin inankaas uu la soo lugan jiray saddex hilib saddex bishana waa loo keenay jiray inankaas wuxuu qaadan jiray wasada sixirkeeda oo lacaga wuxuu xaaxi markaa barkadu waxay lahayd biro wada qasabada salo sariic aqaayado 7 aqaayadood baa saarnaa birano way saarnaayeen waxa lagu markii farta laga qaaday gaari la dulbari barkada albaabadan xadiidna way saarnaayeen oo shubaa dusha laga shiyo shubaheed anigu waan ku soo gaariyado caynkeediyo garantiina halka masaajidka dhinaciisa wuxuu ka furay muqaaxi wadaada isku reedihiin oo la yiraahdo Maxamed Qardajeex ayaa meheradii ugu horeysay isaguna halka ka furay say magaalada horta ku dhalatay marka hore waa sida waxa ay noqotay taariikhdaas waa kotonkii la digay magaalooyinka ugu faca weyn leh ee ugu mudnaa ee xusbillaahidi waxay ka dhalatay waxa laga tagay calanka la milaaxo iyaduna waxay talabaad taariikhdaas ay lahayd daartii ugu horeysana wuxuu baa dhisay isla xaaxi baa hadana ka dhisay halka guri daara oo halka imkeedii ka muuqdo oo burbursan oo masaajidka ku xiga ayay daartii ugu horeysana ahayd saasa magaalada lagu digay gudoomiyihii ugu horeeyay marka magaalada gudoomiyaha ka noqday wuxuu ahaa nin loo jeedo Hadoodil in Cismaan Shariif oo nin karaamo lahaa oo sharaf leh oo goba ayuu ahaa